garaadku dhaqanka beelaha habargidir ee Soomaali u gudbiyay inay walaalahood wax ka tabanayaan marka koobaad waxaan rabnaa inuu caddeeyo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dhaqanka beelaha Mudulood oo dacwad ka dhan ah gudbiyay garaad jaamaca garaad cali Puntland oo amartay in la soo xiro odayaal taageeray dowladda federaalka Soomaaliya kana soo horjeestay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni Mareykanka oo taageerada ka joojiyay ciidanka xoogga dalka ee danab iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay fadeexad culus oo musuqmaasuq ah oo loo geystay raashinka ciidanka danab qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena nuxurka dhacdooyinka fadlan daawadee haddaad ku cusub tahay barahayaga bulshada noo follow garee oo noo subscribe garee channelada aan ku leenahay degalada Facebook iyo waliba YouTube-ka aan ku bilownay dhaqanka beelaha Mudulood oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku eedeeyay garaad jaamaca garaad cali garaadka beesha dhulbahante in habargidir ay uga soo dacwoodeen abgal odayaasha maanta hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhaqanka beelaha madarkicis oo la isku dhaho Mudulood iyo habargidir ay iska warsadeen arintaasi isla markaana ay been noqotay in habargidir ay ka dacwootay walaalahooda abgal garaad jaamaca garaad cali ayaa waxaa la sheegay in maalmo ka hor uu sheegay in habargidir ay u soo dacwootay garaad jaamac iyagoo ka cabanaya walaalahooda Mudulood ama abgal sida hadalka loo dhigay garaadka ayaa sheegay in habargidir ay ka cabanayso abgal oo ka barakicinayso dhulkii ay deganaayeen ee Sebiano oo uu ka waday xerada dabdamiska oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu dalbaday in laga guuro balse markii dambe la hakiyay arrinkaasi odayaasha hadlay ee dhinaca Mudulood ayaa waxa ay sheegeen inay raadiyeen oo ay la kulmeen walaalahooda habargidir isla markaana ay weydiiyeen sababta ay ugu dacwoodeen beelaha daarood gaar ahaan garaadka beesha dhulbahante balse ay ogaadeen in hadalka garaadku uu ahaa mid aan laga fiirsan garaad jaamac garaad cali waxa aan ka rabnaa halka uu ku arkay habargidir oo ka dacwoonaysa walaalahooda Mudulood dhaqanka labada beelood way iswarsadeen mana jirto wax dacwada oo garaadka loo gudbiyay sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah waxgaradka oo warbaahinta la hadlay dhaqanka beesha Mudulood ayaa beelaha dhulbahante u sheegay in warkii ka soo yeeray garaad jaamac garaad cali uu gaf ku ahaa beelaha walaalaha ah ee Mudulood iyo habargidir iyagoo ka dalbaday dhaqanka dhulbahante inay gogol u dhigaan arrintaasi oo garoonshiyo ay ka bixiyaan odayaasha beesha Mudulood ayaa muujiyay inay ka xumaadeen hadalkii garaad jaamac garaad cali ee maalmihii la soo dhaafay lagu faafiyay baraha bulshada kaasi oo ku saabsanaa dhulkii muranka uu ka taagnaa ee dabdamiska kaasi oo ay u baahatay hay'adda booliiska Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyana waxa ay shaaca ka qaaday fadeexadii ugu cuslayd oo ka dhexdhacda ciidamada xoogga dalka qaasatan ciidanka danab ee uu tababaro Mareykanka taas oo la leexsaday qaar ka mid ah raashinkii lagu taakulayn jiray ciidamada wasaaradda ayaa waxa ay shaacisay in la xiray saraakiil sare oo lagu tuhunsan yahay kiiskan waxa kale oo ay sheegtay in arrinta ay ku wargelisay dowladda Mareykanka isla markaana inta baaritaanku uu socdo la wareegi doono bixinta raashinka ciidanka lama soo bandhigin darajada iyo magacyada saraakiisha lala xiriirinayo leexsashada ciidanka raashinka danab xogta ayaa waxa ay sheegaysaa in dowladda Mareykanka ay go'aamisay inay hakiso taageerada raashinka ee ay siin jirtay ciidamada danab sabab la xiriirta musuqmaasuqa xoogan ee lagu sameeyay raashinkii lagu taakulayn jiray ciidanka xoogga dalka qaasatan qaybta danab wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mahad celinaysaa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saartay taageerada dowladda Mareykanka ee iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira al-shabaab iyo sidoo kale bixinta taageerada muhiimka ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo horumarinta dalka maalgelinta Mareykanka ku sameynayo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab waxay abuurtay in ciidan awood leh oo horseed u noqdo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay xoojiyeen tallaabooyinkooda isla xisaabtanka ee waafaqsan ajendayaasha dib u habeynta ciidamada baaritaankan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in qayb ka mid ah raashinka ciidanka danab la leexsaday
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhacdadan ka falcelisay waxayna isla markiiba bilowday baaritaan taasi oo keentay in shaqada laga joojiyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka iyo hufnaanta saadka ciidamada. Sidaasi waxaa lagu yiri saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhacdadan ku wargelisay dhinacyada ay khusayso waxayna la wadaagi doontaa natiijada baaritaanka marka uu soo dhamaado. qoraal ku mudaysnaa 21 Abriil 2024 oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa lagu amray taliyaha booliiska gobolka Bari inuu soo qabto 4 oday oo uu ku jiro nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahin Ugaas Xarago. maxkamadda oo cuskanaysa codsi uga yimid xeer ilaaliyaha ayaa sidoo kale waaran waxay u soo jirtay odayaal kale. odayaashaasi oo ka mid yihiin Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Xaaji Xasan Galaal, Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf. qodobada loo cuskaday ee lagu eedeeyo odayaasha ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa ah kicin bulsho iyo inay ammaanka khatar ku yihiin. odayaasha dhaqanka oo ku jira nabadoon Xarago ayaa loo haystaa inay afkooda ay ku taageereen dowladda federaalka Soomaaliya shir lagu qabtay magaalada Boosaaso kaasi oo lagu faafiyay baraha bulshada. nabadoon Xarago ayaa dhawaan waxa uu sheegay inaysan aqbalaynin in Puntland ay noqoto gooni goosad, isagoo oo sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu yahay mid aan ka turjumaynin rabitaanka dadka shacabka ee reer Puntland. waxaa sidoo kale lagu haystaa inay ka soo horjeesteen go'aankii Puntland ee ahaa in aqoonsiga ay kala noqotay dowladda federaalk ee Soomaaliya. sidoo kale odayaasha ay hay'adaha ammaanka ee Puntland ay raadinayaan ayaa waxa ay ka hor yimaadeen heshiiskii Puntland iyo Itoobiya ee dhawaan wada gaareen. Puntland ayaa hadda beegsanaysa cid kasta oo taageerta dowladda federaalk ee Soomaaliya. maalmo ka hor waxa ay mamnuucday in xaflad soo dhaweyn ah loogu qabto wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo ka soo jeeda magaalada Garowe in Garowe xaflad loogu qabto. waxayna hadda u muuqataa Siciid Cabdulaahi Dani iyo kooxdiisa inay cid kasta oo ka soo horjeeda aragtidooda taageertana aragtida dowladda federaalka Soomaaliya in ay la beegsanayaan xabsiga sida Muuse Biixi oo kale. barnaamijkeennii nuxurka dhacdooyinka oo kala socoteen channelka nuxurka dhacdooyinka dhinaca Facebook iyo YouTube-ka waa naga inta. fadlan daawade haddaad ku cusub tahay barahayaga bulshada oodan horay noogu soo biirin oodan horay uga mid ahayn noo subscribe garee noona share garee barnaamijka noona like garee si uu dad badan u gaaro. mahadsanidin.